صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga Caasha Xaraab official. waa in salaamaya dhammaantiin walaalayaal si tihiin oo aan tihiin koro xaaladiina waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan maasha Allah. walaalayaal waxaan doonayaa inaan ka hadlo baryahan youtube-kii horta maan soo gelin oo waa yar howlaha waan iska yeeshay alxamdulillaah waa ii socdaan howlahaydii laakiin anaa xoogaa ka yar habsaamay. runtii waxaan arkay soomaalida waxay noqotay in shaqo la iska dhigto ayay noqoto. waxaana ka fiican in shaqo la iska dhigto, qof walba inuu hawlihiisa ku tooso. qof bini'aadana inaad ku shaqo ka dhigatid aad bay u xun tahay. qof walaalkaaya maanta dhan ka hadlayso ma jecla qofka walaalka inaad ka hadasho maanta dhan qof walaalka ka hadasho. waxaad moodaa Soomaaliya isku daydayanayaan oo leeyihiin hebel adna ka hadal adna hebel ka hadal aad xoogaa fiyuuso ka shidee ma ka fikirta walaal fiyuuska aad raadinaysid dembiga kaaga iman kara in qof walaalka ku dhegan tahay waxba kuu geysanan ku garanaynin kuma yaqaano kuma garanayo iskaga dhegan tahay ma malaysaa raalli inuu kaa yahay. xoolaha tabkaa ka heshana waa xoolo xaaraana xub meel waxba kuu samayn maaya aduun bay dembi kuu keenayaan. marka wixii wanaaga oo ummadda kusoo kordhinaya ka hadal, laakiin wax aan haba yaraatee waxaan dhibaato ahayn dembi ahayn aan kusoo kordhinin adigana colaad ku abuurayo qof walaalka aad ku dhegan tahay iska daayana dhehla youtuberada walaalayaalo waa iga talo mashquulka faraha badan laysku mashquuliyo iska daayo. anigu maanta waxaan ka hadlayaa cawaale aadan ma garanayo tvgaas ma ka daawaday inaan idhahdo cawaale ugu guursaday tii hore ka teg micno badan samaynaysa laakiin wax micnay samaynay inaan maadaama uu guursado guri xaala guursado inaan u hambaliyayo taas waxba ii samaynaysa micno ii samaynaysa. marka ma ka fikirteen ninkaas waxaa saruu lahaa caruur buu leeyahay waad ku daraysaa kala fogaanshaad ka samaynaysaa gabadhii xaaskiisii baad ku daraysaa tii cusbayd baad ku daraysaan tii horaad ku daraysaan reerkiiba dabbaad dhex dhigteen halkii reerka islaamka uga hambaliyeyn lahaydeen haddaydan u hambaliyeyn gelin inaad farax ka qaadaan at least xitaa gabadha inaad tidhahdaan walaalay ilaahay baa ninkaa furbaneeyey gabadhiisa horenu iska haysanaya tanna dee isaga qabaasna wuu iska haysanaya laakiin dabbaad kala dhex shidaysaan saasaa dab isugu horinaysaan. anuu marka waxaan odhan lahaa cawaale aadan anigu dan ka hadlo fikirkayga waxaan leeyahay ilaahay diinta wixii inuu ugu sheegay ayuunbuu sameeyey wax haba yaraatee xun uu sameeye ma ark wuu guursaday guurkuna ilaahay baa rag furbaneeyey guur xalaal uu guursaday hambalyaan leeyahay hambaliyo kunjeer tiwaadii horena hayso tanna hayso haddaad afrayn kartidna afree waayo dee afar ilaahay baa ragga u banay wax xaqsoori kartid iska guursana maaha ragga laftigood waa inay xaq soori karaan. buuq iyo barbareynka reerka cusub baa laga joojiyay iyo reerkii hore intaba asaan haddaad u samaysaan ka aamusa haddaydna wax wanaagsan sheegi karin ka aamuskuba waa xale. laakiin aad maanta hore wadaan arsaaqad ku doonataan walaahi reer islaamiyaad isku dilaysaan oo isku gubaysaan arsaaqadaad ka heshaan waa dhimbil naara waa xaaraan. xashka kama tegi kartid kama soo xajin kartid sadaqa kama bixin kartid qofka walaalkaaya yaad jarjaraysaan saa u rifaysaan ma u malaynaysaa inuu raalli idinka yahay inaad riftaan oo reerkiisa sheegtaan oo gabadhii hore ku dirtaan. hadda iyagu waxay isleeyihin wax wanaajiya laakiin waxbay xumaynayaan. waan ogahay waxay sheegayiin inay ogyihiin inay wax xun tahay laakiin iimaankii baa ka tegayo arsaaqadaa meel xun ka gashay. marka qof walaalkaaya oo adigoo kale adba ma jeclin kuwa youtuber ayagoo ma jecla markay gurguursadaan hadday wax sameeyeen la sheego waxay doonta baa noqotay ma jeclin la sheego qof raalli kaa in la xanto oo maanta dhan ugu wadana ma jecla ma jiro. marka naftaada kasoo qaad baa layidhi idinkoo ma jecelin inaad wadee iska daaya ragga daaya dumarka daaya wixaad waani kartaan waaniya laakiin iska daaya waxaanaad arsaaqada xaaraanta ku raadsanaysaan. cawaalana waxaan leeyahay hambalyo wakaa haddii youtubradan oo dhan dadka iska leh oo inta xumaanta raadiya kuwa waxay jira waxaasba ogeyn wallaahi dib haddii loo eego hooyooyinkood iyo aabayaashood waa lala soo guursaday aabahood
labuu lahaa ama 3 buu lahaa iyagaad wax ka dhigayaan maanta inaan weligeedba lala soo guursan jirin warsawtii raggeenu labadii iyo 3 iyo 4 guursan jiray goormaa xaaraan noqoto in dumarka lala guursado goortii xaaraanta noqotaan la yaabana ma waxaan yara dhaldhalaalkan yar ee qurbaha iyo adduunkan maanta westernka la tegay baa wax loo malaynayaa waxaasi ma jirto weligeen baa lasla soo guursan jiray dhibna ma lahaan jirin aruuro walaalaa baa dhalan jiroo badan waa garabka walaalo kale u dhalanaya innaga daynu soomaalinahan waa yarnahayba inaynu raggeenu gurgursadaan oo xur badan dhalan dantaynu ugu jirto islaamnimaday soo kordhinayaan walaaltinimaday badinayaan maxaa ku jiran waxba lama sheeg kuwa xaaraanta ku jira kuwa xalaasha ku isku gursanaya la sheeg waana xumaantii oo badatay marka waxaan leeyahay cawaale iyo inta lamidaba gurgursada badiya muslimka badiya gabdhahana waxaan leeyahay walaalayaal raggiina uga raali noqda raggiina inay guursadaan waayo wax iyaga hadeertaan bilaabeen maaha waa weligeed soo jirtay marka waxaan leeyahay gabadhii horena waxaan leeyahay gabadhay caruurtaada hayso ciyaalka ha korso maxaan ku rahday adaaba qurbaad joogtaa u baahan in ilmaha korsato odagaagana iska hayso iyaan lagu ku dirin waxaan afka ka wada waalwaasheeye shaqo camalka beelayna dheg ha u dhigin horey bay kusoo ceebeebeen muxuu ahaaye xariir axmed iyo hore loogu ceebeebay markay gabadhii ku tiri anaa raallowga ah ruuxaan ma xishoonayaan xitaa xishoon maayaan shalay baa ay ku ceebeebeen welina wixii dabada hayaa waa dad laga quustay ilaa waa nalaga quusay oo xayadii meel soo dhigtay waxaan leeyahay guurkiina guur khayr reerkii lagu barwaaqoobo allah ka dhigo anigu waxaan doonay inaan taa ka hadlo waanad mahadsantihiin dadka daawan doona waad mahadsantihiin inta ii riyaaqda iyo inta iga caroota labadaba waan soo dhaweynaya anu qofna wax kama sheegin laga yaaba dumarka inay iga yar xanaaqaan laakiin dumarka waxaan leeyahay caradiinu wax caro jirta maaha waxa diintu sheegtay waxaan kama hadlin cidna anigu lid kuma yihi tiyaan dee la jeclay in la guursado iyadeeda ikhtiyaarkeeda leedahay hadday kala joogaysa hadday ka tagisaba laakiin wixii diintu sheegtay umaan anigu sheegay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaalow halka maxuu garanaysaa ee naga caddeeya khayr allah idin siiyo indhaha iyo gacmaha iyo waxaba allah idin barakeeya walaalayaal janaalka si fiican igu asaasi korreeb gareeya wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كيغا عاشا حراب official وإن سلام يا دمانتين ولا ليال سيتهين وعنتهين كورو حالدينا وحرجيني أنا العافمة غبطان ما شاء الله نورا لو أنا وعاوحن دوني أنا كهالله ريهان يوتيوب كي هرتمان سوقلين وواير حولي حواسكي يا شيء الحمد لله ويسعدنا حولها يدي laakiin anaa xoogaa ka yar habsaamay runtii waxaan arkay soomaalida waxay noqotay in shaqo layska dhigto ayay noqota waxaana ka fiican in shaqo layska dhigto qof walba inuu hawlihiisa ku tooso qof bini-aadana inaad ku shaqo ka dhigatid aad bay u xun tahay qof walaalkaaya maanta dhan ka hadlayso ma jeclo qofka walaalka inaad ka hadasho maanta dhan qof walaalkaya ka hadasho waxaad moodaa soomaalida isku dadayanayaan oo leeyihiin hebel adna ka hadal adna hebel ka hadal aad xoogaa fiyuusa ka shideen ma ka fikirta walaal fiyuuska aad raadinaysid dembiga kaaga imaan kara in qof walaalkaya ku dhegan tahay waxba kuu geysanan ku garanaynin kuma yaqaano kuma garanaayo iskaga dhegan tahay ma malaysaa raalli inuu kaa yahay xoolaha jirkaa ka heshana waa xoolo xaaraana xub meel waxba kuu samayn maayaan aduun bay dembi kuu keenayaan marka wixii wanaaga oo ummadda kusoo kordhinaya ka hadal laakiin wax aan haba yaraatee waxaan dhibaato ahayn dembi ahayn aan kusoo kordhinin adigana colaad ku abuurayo qof walaalka ayaad ku dhegan tahay iska daayaan dhehla youtuberada walaalayaalo waa iga talo mashquulka faraha badan laysku mashquuliyo iska daayo anigu maanta waxaan ka hadlaya cawaale aadan ma garanayo tvgaas maan ka daawaday inaan idhahdo cawaale ugu gursaday tii hore ka teg micno badan samaynaysa laakiin wax micnay samaynay inaan maadaama guursado guri xaala guursado inaan u hambaliyayo taas waxba ii samaynaysaa micna ii samaynaysaa marka ma ka fikirteen ninkaas waxaa saruu lahaa caruur buu leeyahay waad ku daraysaa kala fogaanshaad ka samaynaysaa gabadhii xaaskiisii waad ku daraysaan tii cusbayd baad ku daraysaan tii horaad ku daraysaan
reerkiiba dab baad dhex dhigteen halkii aad reerka islaamka uga hambaliyeyn lahaydeen haddaydan u hambaliyeyn gelin inaad farax ka qaadaan at least xitaa gabadheena aad tidhahdaa walaalay ilaahay baa ninkaa furbaneeyey gabadhiisa horenu iska haysanaya tanna dee isaga qabaasna wuu iska haysanaya laakiin dab baad kala dhex shidaysaan saasaa dab isugu hurinaysaan anuu marka waxaan odhan lahaa hawaale adan anuga dan ka hadla fikirkayga waxaan leeyahay ilaahay diinta wixii inuu ugu sheegay iyuunbuu sameeyey wax haba yaraatee xun oo uu sameeye ma ark wuu guursaday guurkuna ilaahay baa rag furbaneeyey guur xalaal uu guursaday hambalyaan leeyahay hambaliyo kun jeer timaadii horena hayso tanna hayso haddaad afreen kartidna afree waayo dee afar ilaahay baa ragga u banay wax xaqsoori kartid iska guursana maaha ragga laftigooda waa inay xaq soori karaan buuq iyo barbareynka reerka cusbaa laga joojiyo iyo reerkii hore intaba asaan haddaad u samaysaan ka aamusa haddaydna wax wanaagsan sheegi karin kaa aamusaa aamuskuba waa xale laakiin inaad maanta oo dhan wadwadaan arsaaqad ku doonataan walaahi reer islaamaad isku dilaysaan oo isku gubaysaan arsaaqadaad ka heshaan waa dhimbil naara waa xaaraan xajka kama tegi kartid kama soo xajin kartid sadaqa kama bixin kartid qofka walaalkaaya yaad jarjaraysaan saa u rifaysaan ma u malaynaysaa inuu raalli idinka yahay inaad riftaan oo reerkiisa sheegtaan oo gabadhii hore ku dirtaan hadda iyagu waxay isleeyihin wax wanaajiya laakiin waxbay xumaynayaan waan ogahay waxay sheegayin inay ogyihiin inay wax xun tahay laakiin iimaankii baa ka tegayo arsaaqada meel xun ka gashay marka qof walaalkaaya oo adigoo kale adduun ma jecli kuwa youtuber iyagoo ma jecla markay gurguursadaan hadday wax sameeyeen la sheego waxay doonta baa noqotay ma jecla in la sheego qof raalli kaa in la xanto oo maanta lagu wadana ma jecla ma jiro marka naftaada kasoo qaad baa layidhi idinkoo ma jecelin inaad wadee iska daaya ragga daaya dumarka daaya wixii aad waani kartaan waaniya laakiin iska daaya waxaad arsaaqada xaaraanta ku raadsanaysaa cawaalana waxaan leeyahay hambalyo wakaa haddii youtuuberadan oo dhan dadka iska leh oo inta xumaanta raadiya kuwa waxay jira waxaasba ogeyn wallaahi dib haddii loo eego hooyooyinkood iyo aabayaashood waa lala soo guursaday aabahood labuu lahaa ama 3 buu lahaa iyagaad wax ka dhigayaan maanta inaan weligeedba lala soo guursan jirin warsowtii raggeenu labadii iyo 3 iyo 4 guursan jiray goormaa xaaraan noqotay in dumarka lala guursado goortii xaaraanta noqotaan la yaabana ma waxaan yara dhaldhalaalkan yar ee qurbaha iyo adduunkan maanta westernka la tegay baa wax loo malaynayaa waxaasi ma jirto weligeen baa la soo guursan jiray dhibna ma lahaan jirin aruuro walaalaa baa dhalan jiroo badan waa garabka walaalo kale u dhalanaya innaga daynu soomaalinahan waa yarnahayba inaynu raggeenu gurgursadaan oo xor badan dhadhalan dantayna ugu jirta islaamnimaday soo kordhinayaan walaaltinimaday badinayaan maxaa ku jiran waxba lama sheego kuwa xaaraanta ku jira kuwa xalaasha ku isku gursanaya la sheego waana xumaantii oo badatay marka waxaan leeyahay cawaale iyo inta lamidaba gurgursada badiya muslimka badiya gabdhahana waxaan leeyahay walaalayaal raggiina uga raali noqda raggiina inay guursadaan waayo wax iyaga hadeertaan bilaabeen maaha waa wax weligeed soo jirtay marka waxaan leeyahay gabadhii horena waxaan leeyahay gabadhay caruurtaada hayso ciyaalka ha korso maxaan ku rahday adaaba qurbaad joogtaa u baahan inaad ilmaha korsato odagaagana iska hayso iyaan lagugu dirin waxaan afka ka wada waalwaashee shaqa camalka beelayna dheg ha u dhigin horey bay kusoo ceeboobeen muxuu ahaaye xariir axmed iyo hore loogu ceeboobay markay gabadhii ku tiri anaa raallowga ah ruuxaan ma xishoonayaan xitaa xishoon maayaan shalay baa ay ku ceeboobeen welina wixii dabada hayaa waa dad laga quustay ilaa waa nala ka quusay oo xayadii meel soo dhigtay waxaan leeyahay guurkiina guur khayr reerkii lagu barwaaqoobo allah ka dhigo anigu waxaan doonay just inaan taa ka hadlo waanad mahadsantihiin dadka daawan doona waad mahadsantihiin inta ii riyaaqda iyo inta iga caroota labadaba waan soo dhaweynaya anu qofna wax kama sheegin laga yaaba dumarka inay iga yar xanaaqaan laakiin dumarka waxaan leeyahay caradiinu wax caro jirta maaha waxa diintu sheegtay waxaan kama hadlin idna anigu lidkuma yihi tiyaan dee la jeclay in la guursado iyadeeda ikhtiyaarkeeda leedahay hadday kala joogaysa hadday ka tagisaba laakiin wixii diintu sheegtay umaan anigu sheegay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaalow halka maxuu garanaysaa ee naga caddeeya khayr allah idin siiyo indhaha iyo gacmaha iyo waxaba allah idin barakeeya walaalayaal
channelka si fiican igu subscribe gareeya wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh